Waxaana wanaagsan daawadayaal meel kastoo aad joogtaan kusoo dhawaada barnaamijkeena xogta dunida. Qodobada aynu ku eegi doonno waxaa ka mid ah Turkiga oo saanad ciidan iyo gaadiid dagaalba ku wareejiyay Ukraine. Miyuu dhabar jebinayaa Ruushka? Waxaan idin haynaa wararkii ugu dambeeyay dagaalada ka soconaya wadanka Ukraine. Mareykanka oo digniin degdeg ah u diray muwaadiniintiisa ku sugan Ukraine. Mar kale soo dhawaada. Daawadayaal nagu cusubtahay nagu soo biir fadlan channelka subscribe noo saar sidoo kale fura gambalaalka si aad u noqoto daawadeena ugu horeeya mahadsanid. Aynu ku bilaawno. Mareykanka ayaa ku eedeeyay Ruushka Talaadadii in uu doonayo in uu xoojiyo weerarada uu ku hayo Ukraine, isagoo dhanka kalena ka codsaday Faransiiska in uusan wax daciifnimo ah u muujin Moscow maadaama uu dagaalka galay bishii toddobaad. Codka ayaa sidoo kale kor u kacaya gudaha Ruushka, halkaas oo wasiirka arrimaha dibadda Ruushka Sergey Lavrov oo ku nuuxnuuxsaday in dalkiisu uu si naxariis darro ah ula macaamili doono kuwa mas'uulka ka ah qaraxii baabuurka ee lagu dilay gabar uu dhalay mufakirkii qaranka mayalka adag pro-Kremlin Alexander Dugin oo lagu naaneyso maskaxda Putin. Dhankeeda Washington ayaa ugu baaqday muwaadiniinteeda ku sugan Ukraine inay si degdeg ah uga baxaan digniintaas oo ah tii ugu horeysay ee nooceeda ah tan iyo markii uu dagaalka bilowday bishii Febraayo ee lasoo dhaafay, iyadoo la filayo in Ruushka uu bartilmaameedsado xarumaha rayidka iyo kuwa dowladda ee dalkaasi. Iyadoo madaxweynaha Ukraine Volodymyr Zelensky uu ballan qaaday in uu dib u soo celin doono dhammaan goobihii la qabsaday ee dalkiisa oo ay ku jirto Crimea. Duqeymaha ay isweydaarsanayaan ciidamada dalkiisa iyo kuwa Ruushka ayaa sii xoogeystay kana socda koonfurta iyo bariga. War qoraal ah oo ay safaaradda Mareykanka ee Ukraine ku daabacday website-keeda ayaa wasaaradda arrimaha dibadda ee Mareykanka waxa ay ku sheegtay in ay heshay xog ku saabsan in Ruushka uu xoojinayo dadaalada uu ku doonayo duqeymaha ka dhanka ah kaabayaasha rayidka ah ee xarumaha dowladda ee Ukraine maalmaha soo socda. Bayaanka ayaa lagu xusay in duqeymaha Ruushka ee Ukraine ay halis joogto ah ku yihiin rayidka iyo kaabayaasha rayidka. Safaaradda Washington ee Kiev ayaa sidoo kale ku boorisay muwaadiniinteeda inay ka baxaan Ukraine hadda iyada oo la adeegsanayo fursadaha gaadiidka dhulka ee ay heli karaan qaybta gaarka loo leeyahay haddii ay ammaan tahay in sidaasi la sameeyo. Madaxweynaha Ukraine Volodymyr Zelensky ayaa toddobaad ka hor ka digay in Ruushka uu qaadi karo wax uu ugu yeeray weeraro arxan darro ah inta lagu guda jiro xuska sanad guurada madax bannaanida Ukraine. Ukraine ayaa u dabaaldegaysa maalinta madax bannaanida ee 24 Agost, taas oo ku beegan sanad guuradii nus sano ee kasoo wareegtay dagaalkii Ruushka. Dhaarta Volodymyr Zelensky. Dhanka kalena madaxweynaha Ukraine Volodymyr Zelensky ayaa ballan qaaday in calanka Ukraine uu ka dulbaban doono dhammaan dhulka Ukraine ee sida ku meel gaarka ah loo haysto oo ay ku jirto Crimea, halka Ruushka uu madaafiic iyo duqeymo cirka ah ka geysta meelo badan oo Zaporizhzhia ah sida ay sheegeen saraakiisha guud ee wadanka Ukraine. Zelensky ayaa ka qayb qaatay kor u qaadista calanka Ukraine ee xuska Kiev si loogu dabaaldego maalinta qaranka Talaadadii, isagoo sheegay in calanka buluugga iyo jaallaha ah ee Ukraine uu mar kale ka baban doono meeshii la rabay. Zelensky ayaa carabka ku adkeeyay in isku dayga lagu been abuuray taariikhda aysan shaqayn doonin islamarkaana uusan wadankiisa aqoonsan doonin calamo kale oo ka taagan dhulka Ukraine oo ay ku jiraan Crimea, Donetsk iyo Luhansk. Intii lagu guda jiray shir madaxeedka Crimea, wuxuu ku nuuxnuuxsaday in Crimea ay ka mid tahay dalka Ukraine islamarkaana uusan aqbali doonin waxaan ka ahayn in si buuxda gacanta loogu soo dhigo. Wuxuu intaasi ku daray in dagaalka ka dhanka ah Ruushka ay tahay in lagu guuleysto Crimeana laga xoreeyo gumeysiga Ruushka, sababtoo ah taasi waxa ay kor u qaadi doontaa ammaanka Yurub, ayuu yiri. Waxa uu sharaxay in Kiev ay sii wado bixinta lacagaha dadka howlgabka ah ee Crimea, islamarkaana ay bartaan sidii loo soo celin lahaa noloshooda caadiga ah kadib markii laga saaray Ruushka. Ku dhawaad 60 wadan iyo ururo caalami ah ayaa ka qayb galaya shir madaxeedka labaad ee Crimea Platform, kaasoo bilowday Talaadadii. Hubka Turkiga ee Ukraine la siinayo. Shabakadda Defense News ee ka faaloota arrimaha difaaca ayaa ka soo xigatay ilo wareedyo ka tirsan dowladda Turkiga iyo warshadaha in dowladda Turkiga ay gaarsiisay ciidamada Ukraine 50 baabuur oo ah kuwa iska caabiya miinooyinka. Shabakaddan oo soo xiganaysa mas'uul ka tirsan dowladda ayaa sheegtay in keenista baabuurta Kirby ee aan miinadu karin iyo kuwa gaadmada ah ay ka dhalatay heshiis dowladeed balse aysan ahayn heshiis dhexmaray Ukraine iyo shirkadda samaysa baabuurta ee BMC. Heshiiska sida uu dhigayo wasaaradda difaaca qaranka ee Turkiga waxa ay geysay Ukraine qayb hore oo ah 50 baabuur oo nooca Kirby ah, waxaana jiri doona alaabooyin kale oo badan ayay sheegtay ilo wareedka dowladda. Mas'uul ka tirsan shirkadda ayaa shabakadda u sheegay in aysan jirin wax xiriir ah oo ka dhexeeya shirkadda iyo heshiiska,
isla markaana dowladda Turkiga ay soo gaarsiisay dufcadii gaadiidka ee keedka ciidankeeda ah. Suurtagal ma ahayn in la helo faalo degdeg ah oo ku saabsan waxa ay shabakadu sheegtay. Intii uu socday dagaalka Ukraine, Ankara waxa ay Kiev geysay diyaaradaha aan duuliyaha lahayn ee Bayraktar, kuwaas oo saameyn weyn ku yeeshay dagaaladii ka dhanka ahaa ciidamada Ruushka, sida ay shaacisay wasaaradda difaaca ee Ukraine. Duqeymaha labada dhinac. Dhinaca dhulka, maamulka madaniga iyo militariga ee taabacsan Ruushka ee Kherson ayaa ku dhawaaqay in 2 qof ay ku dhinteen 16 kalena ay ku dhaawacmeen duqeymo ay Ukraine la beegsatay boondada Antonovsky ee u dhow magaalada koonfurta Ukraine. Kooxaha gooni ugoosadka ah ee taageersan Ruushka ee ku sugan Donetsk ayaa sidoo kale shaaciyay in 2 qof ay ku dhinteen duqeyn ay Ukraine ka geysatay bartamaha magaalada. Maamulka magaalada waxa uu sidoo kale sheegay in duqeynta lala beegsaday xarun madaxtooyo oo uu dab qabsaday, iyagoo xusay in sidoo kalena madaafiic lala beegsaday hotel, xarun ganacsi iyo dhismayaal la dego oo magaalada ah. Maamulka ayaa tilmaamay in duqeynta lagu fuliyay madaafiic ay Ukraine ka heshay NATO. Dhinaca kalena, taliska ciidanka xoogga dalka ee degmada koonfureed ee Shaac ayaa shaaca ka qaaday inay burburiyeen baqaaradii rasaasta iyo xarumaha difaaca cirka ee Ruushka oo ku yaala deegaanada ay ka taliyaan koonfurta dalkaasi. Diyaaradaha Ukraine ayaa sidoo kale weeraray fariisimo militari oo ku yaala aagga koonfurta ee howlgallada. Sidoo kalena, dhanka koonfureed, ciidamada Ruushka ayaa beegsaday magaalada Odessa iyo gobolada kala duwan ee Zaporizhzhia, gobolka Dnipro iyo sidoo kale Mykolaiv. Dhinaca barina, ciidamada Ruushka ayaa sii waday isku daygii ay ku doonayeen inay kaga soo gudbaan dhanka Bakhmut, iyada oo gantaalo iyo madaafiica lagu garaacay magaalada Kramatorsk ee Donetsk, halka gantaalada Ruushkuna ay ku dhaceen magaalada Kharkiv oo u dhow xadka Ruushka. Dagaalada ka socda wadanka Ukraine ayaa ah kuwo aad u xasaasi ah, waxaana lagu soo waramayaa in dagaalada deegaano hor leh ay ku fidayaan. Sidoo kalena, cabsida ugu weyn ee hadda lasoo sheegaya daawadayaal waxa ay tahay in maalmaha soo aadan dagaalka uu weji cusub yeelan doono oo Ruushka uu doonayo in dagaalka isbedel weyn uu ku sameeyo. Waxaana uu doonayaa markan in ilaa iyo Kiev weeraro culus uu ku qaado. Waxaa la saadaalinayaa oo sirdoonka reer galbeedku ay sheegeen in maalmaha soo aadan diyaaradaha dagaalka Ruushka iyo sidoo kaleba madaafiicda ridada dheer ee Ruushka lagu bartilmaameedsan doono oo lagu duqeyn doono magaalooyin ay ka mid tahay magaalada caasimadda ah ee Kiev. Sidoo kalena, Ruushka waxaa la sheegay in saraakiishiisa kulan ay yeesheen hoosta lagu xariiqay in la burburiyo Ukraine oo idil. Meelaha in la duqeeyo laga yaabo waxaa ka mid ah kaabayaasha dhaqaalaha, goobaha ay ku badan yihiin dadka rayidka ah, waxaana la doonayaa reer Ukraine in markan wadankooda gabi ahaanba laga saaro. Lama oga dagaaladan sida ay ku dambeyn doonaan. Ruushkana waxa uu doonayaa in dagaalkan guul uu ka gaaro maadaama bishii 7aad uu galay. Daawade, aragtidaada qaybta hoose kommentiga noogu reeb. mahadsanid. barnaamijkeena xogta dunida waa naga intaas. barnaamijkan kan xigeentan ku kulmi doona. nabadgelyo. Asalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu.